kulanti waxaan akhyaaray ku soo dhawaada channelka Maxamuud Cabdi iyo wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta oo aan kugu soo koobayo wax ka yar 2 daqiiqo. Magacaygu waa Maxamuud Cabdi Saciid. Tababara ku-xigeenka kooxda Manchester United Mike Phelan ayaa heshiis cusub u saxeexay kooxdiisa United. Kooxda Getafe oo ah kooxda ugu hooseysa horyaalka La Liga ayaa caydhisay tababarahoodii. Ciyaaryahanka reer France Mbappe ayaa sheegay inuu xagaaga soo socda ka tagayo kooxda PSG. Kooxda Watford ayaa Claudio Ranieri u magacaawday tababaraha cusub ee kooxda. Weeraryahanka kooxda Roma Tammy Abraham ayaa looga yeeray xulka qaranka dalka Ingiriiska oo bisha October ciyaaraya reebka koobka adduunka. Tababaraha kooxda Manchester United Solskjaer ayaa taageerayaasha kooxda Manchester United u sheegay inuu yahay nin ku habboon shaqada tababarnimo ee kooxda. Ciyaaryahanka Van de Beek ayaa doonaya inuu bisha January ka tago kooxda Manchester United. Tababaraha kooxda Liverpool ayaa sheegay in 99% ciyaartooyda kooxda Liverpool laga talaalay COVID-19. Ciyaaryahanka Rafael Varane ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay joogitaankiisa kooxda Manchester United. Kooxda Tottenham ayaa xiiseynaysa ciyaaryahanka kooxda PSG ee Icardi. Ugu dambeyntii Antonio Conte ayaa loo saadaalinayaa in loo magacaabo tababaraha cusub ee kooxda Manchester United.